Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan kusoo dhawaada casharadeena. Waa qanaalkii Lessons with Miss Fatma. Maanta waxaa waaye Talaado. Marka Talaadada waa iska ogtihiin waxaan baranno casharadeena iyo sheekooyinkeena gaagaaban iyo tafsiirkoodan galnaa. Welcome to my YouTube channel. Thank you so much for clicking on this video. This is Lessons with Miss Fatma. As usual, this is Tuesday short stories. My house. Gurigayga. My house is small. Gurigayga wuu yar yahay but tidy. Laakiin waa nadiif. There are 2 rooms. Laba qol baa ku yaalo. We have a living room. Waxaan leenahay barsad, a bathroom, musqul, and a kitchen, iyo jiko. The yard has beautiful flowers. Banaanka wuxuu leeyahay ubaxyo qurquruxsan and butterfly iyo baalaley. It is so nice to live here. Aad bay u fiican tahay inaan meeshan ku noolaado. One day, a rich dad took his son on a trip to village. Maalimaha ka mid ah aabbo lacag leh maalqabeen wuxuu wada wiilkiisii inuu geeyo safar oo tuulada u geeyo. He wanted to show him wuxuu raba inuu tuso how poor someone can be. Qof suu faqiir aad u noqon karo. They spent time on the farm of a poor family. Waxay waqti ee la joogeen famil oo masaakiimiin beertooda. Dad asked, aabihii wuxuu weydiiyey wiilkiisii, did you see how poor they are? Aabbo maaragtay see faqiir dadkan u yihiin. What did you learn? Maxaa ka baratay oo ka soo faa'iidaysatay? Son said, wiilkii wuxuu dhahay, we have 1 dog. Aabbo anaga hal ay baa haysanaa. They have 4. Ayaga 4 bay haystaan. We have pool. Anaga waxay haysanaa meesha barkada oo lagu dabaasho. They have rivers. Ayaga wabiyaal bay haystaan. We have lanterns at night. Anaga waxaa haysanaa faynuus habeenkii. They have stars. Ayaga waxay haystaan xidigyaal badan. We buy food. Anaga cuntadeena waa iibsanaa. They grow theirs. Ayaga kooda way beertaan. We have walls to protect us. Anaga waxaan isku ilaalinaa, isku qarinaa derbiyaal. They have friends. Ayaga saaxiibyaal bay haystaan oo badan. We have encyclopedias. Anaga waxaan haysanaa buugagta macluumaadka informationka ka buuxo. They have the Bible. Ayaga waxay haystaan kutubka injiilka. Then they headed. Markaas way baxeen. Thanks, Dad. Wiilku wuxuu dhahay, aabbo shukran waa kaaga mahadcelinaya for showing me how poor we are. Inaa i tusta anaga inaan faqiir nahay. Moral lesson marka. Meeshaan sheekada faa'iidada iyo ulajeedada leedahay. It's not about money that makes us rich. Ma aha lacag waxa anaga qani naga dhigo. It's about simplicity of having God in our lives. Waa fudeedka Ilaahay oo nolosheena ku jirno aan ku qanacsannahay. Bas meesha sheekadaas waxaan dareemayaa ama rajeynaa inaa wax ka barateen.